yaa tihiin kuwa guusha cadowga ku ahaaw yaa tihiin kuwa jecla inay damiyaan iftiinka maxay tahay dabcigiinna allah ayaa inaga kiifilan imise qof baad baabi'iseen oo burburiseen dhaqankiina shayddaaniga ah awgii waxaan idin leeyahay dadka inaad hagaajisaan iskaga taga oo naftiinna hagaajiya waad aragtaan ceebtiinna yar ee walaalkiinna waadna hilmaansantihiin ceebtiinna weyn allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi kuwa alla rumeeyo naftiinna hagaajiya idinma dhibayso qofkii baadiyoobay haddaad xanuunsan tihiin hadalkiina dadka ha ku dilina qalbigiinna ka nadiifiya xaasidnimada cuqdada iyo carada dadka dhib waxa ugu filan la joogitaankiinna ibnu jawsayn wuxuu yidhi qofkii carabkiisa aan ka celin dadka oo raaca ceebtooda allah wuxuu carabkiisa ka celiyaa ku dhawaaqidda ashaatataynka walaalkaygu waxaa kugu nasteexaynayaa dadka hadalkooda dheg ha u dhigin dadka hadalkooda haddii aad dheg u dhigtid way ku niyo jebinayaan waana sida ay rabaan iga qaado qaacidadan wax kama sheego sumcaddaada qof raba adigoo kale inuu noqdo mooye oo fashilmay